jawiga maanta aad iyo aad u fiican yahay sababtoo ah saaxiib markaad adiga faraxsan tahay waxaad moodaa magtaqaan dadkoo dhan ay kula faraxsan yihiin jawiga wax walba aad iyo aad u la qabsanay teeda kale haddaa isdhahdo dunida wax walba waa dhammaadeen bisna haddana koow iyo bilow ay noqonaysaa waa la yaabka oo dunida mugsoon tahay taasna marka si walba waa cabir ترى ولا حري مقعد نوشك ترى برونسي أدوغاك مقعيس إلفيس برونسي هورت هذا مقعد شنايا إسواتي برونسي أوكي يا لقوكو يرى وباهنتا يا در أنرجو رون iyo been kalsooni iyo kalsoonin daro habeenkaas ayuu aniga taara dhexdeena ka dhex dhashay wararka warbixinooyinka barnaamijyada waxyaabaha ka dhacaya dunida dacaladeeda intaba waxa diyaar idin la ah oo aad ka heli kartaan bogga internetka ee www.safifilms.com
aniga bansaari waan dilay balse taaraa waxay ii haystaa inaan ahay qof burcada waa arrin fiican aad iyo aad baan ugu farxay aniga bansaali in la dilo waan u baahnaa maxaa yeelay waddankeena iyo daraagiisa wax lamid ah iyo muqaadaraad iyuu soo gelin jiray aye istore waxaan rabaa bansaali marka la dilaya ragoo iyo ciidankiisa meesha ay ku maqnaan isu ogow okay waayaha tale aniga sideeda ma jecleen taara inaan wax ka qariyo markaasna waxaan rabay runtana u sheego haye weli waa soo jeedaaye taara wax ku sheeg ayaan rabaa ii sheeg aniga xalay kilaabka gabar ayaan kula kulmay kadibna qalad ayaa naga dhex dhacay runaant aniga ma rabin aamus iska jir mar baa haddii aad ila hadashid aniga maxay tahay aamusnaantan dagaal miyaa jira mar kale arooskiina hal bilow keliya ayaa ka dhiman dagaalka joojiya wixii dhacay iska ilooba taara fikirka badan iska dhaaf adigana waan ogaa qalad oo dhan ninkan inuu leeyahay hooyo waxaan rabaa airline xoogaa inaan ku soo nasto maxay dhahde hadda sidee ku baxaysaa shaqo badan ayaa idiin taalo maxaan u joogaa wax diyaara uma jiraane gabadhaydi maxaad ku hadlaysaa kaararka arooskaagii waa la soo sameeyey raguu wixii dhan wuu soo diyaariyey maxay tahay safarkan deg deg ah oo hadda ku soo galay ii sheeg hooy haddii aad safarka jooji kartaara ka jooji okay gabadheedii taaraa aniga ma ogi wixii hore idiin dhex mara idinka laakiin hadda waxaan u jeedaa gabadheedii inaa adiga hadda qaldami rabto wiilkan raguu ee wiil fiican waaye annagana waxba nagama oosan halayni gabadheedii famil ayuu naga dhigtay ma jiro wiil jecel sodoodiis inuu la dego gabadheedii laakiin aniga hooyadiisoo kale ayuu iga dhigtay gabadheedii waxna kaama halaynaayo adiga inaa isdejisa isku day gabadheedii arrinkaaneetane hoos u dhigto wiilkaanna wuu ku jecel yahay waana wiil fiican waa nin fiican wuu shaqaysanayaa wax walbuu qabsanayaa annagii uu nala joogaa waa ku baryaa gabadheedii isdeji hooyo anigina wax maqla maba rababa halo maya aniga ma imaan karo anigii taara ayaa isku dhacsan aniga wax ii haystaa maxaa yeelay aniga ayaa waxay ii haystaa gaangistirooyin inaan ahay arrintaa waana xaliyaa marka aniga mar kale ayaan kulmaynaa okay haydar haye qof inaan la kulmo ma rabo okay mudane xaaladdu way kacsan tahay okay haa mudane taara waxay u baxday dublin hotel ay degan tahay iyo wax telephone number kama hayo aniga hooyana kama hayso marka waxaan ku fikiray adiga inaad wax khabaar ka heli karo oo taara ku saabsan maya mudane aniga wax information ah kama hayo wiilkayga ragow adiga wax iima sheegoosid taaraana wax mii sheegooso say wax u jiraan wiilkaygii sheekadan maxay tahay
siday dublin u aaday xasuusteeda waxaan ka ahayn aniga ma haysanin halo waan ogaa aniga taara wax dambi ah in aysan ku lahayn falkaas balse waxaan rabay inaan ogaado cidda ka dambaysay falka lagu haysto taara tara waa maxabiis mugsuuntay mana la kulmi kartid haddii ku madax adeegtid oo isku daytid inaad taaraa la kulantid kiiska waa u sii dalaca habsiga baa kusii qurmuunaysa iyada marka adiga ma la kulmi kartid yes ma garat iiraa la noqda aniga waan soo daahay magacaygan waa eli okay abukaata taara ayaan ahay aniga eli kiiska taara maadaama gacantood ku dhigtay waad ku maasan tahay adaa mudan eli waxaan u baahnaa aniga taara inaan la kulmo dadkaan way diidan yihiin inaan la kulmo marka wax ii samee ku baryaan meeshan aad ayay u adag tahay dadka xirana lalama kulmo haddaad kusii madax adeegtidna kiiska ayaa lagu sii saa'idinayaa marka si tartiiba ayaad ula kulmaysaa adiga taaraasoo lama kulmi kara aniga hadda yes boss waa mahadsantahay because taara aniga waan ku salaamay magacayga waa eli waxaana abuukaataaga hooshana ragu waa ku jiraa raguma halkan joogo haa aniga waxaan rabaa su'aal walba oon ku weydiiyey si saxa inaad iiga jawaabtid adiga dublin sideed ku timid adiga middaas ayaan ku weydiinayaa ii sheeg aniga ii sheeg su'aal walba waxaan rabaa si saxa inaad iiga jawaabtid adiga aniga waxaa jiro wiil aan facebooka isku baranay adiid ayaa la dhahaa halkanna hool ayaan ka wada qaban lahayn wax adiid la yidhaahdo meeshaan maba joogaanba okay sheekada ii wad xaggee ku dambaysay wuxuu igu yidhi asaga addareeskan intaad qaadato ayayday u tag markaad ayayday u tagtidna waxaad iiga soo qaadaa buugaag iyo cd-yaal anigana sidaas ayaan ayay ku raadiyey ayay markaan u tagay buugaagtii cd-yaashii horey iigu soo dhiibtay okay magaceeda ma taqaana adiga maya wejigeeda ma tilmaami kartaa aniga wejigeeda waan tilmaami karaa way indha burburneed way dheereed codkeedana aad ayuu u weynaa asaga wuxuu iga ballan qaaday eelaboorka inuu igu soo dhawaynayo aad ayuu iiga soo daahay wax badan ayaan aniga sugaayay kadib taleefon ayuu ii soo diray halo adiid haa taariikh waa ku salaamay walaalkayga weyn ayaa shil galay marka isbitaal ayaan ku jiraa waan ka xumahay adiid mideeda kale taksi soo qaado ama taksiilaha igu dhiib kadib aniga ayaa fahansiinayo meesha aan joogo waayahay taksiga markaan soo raacnay 10 daqiiq kadib askar ayaa timid anigana waa la soo xiray adiga moogta magaciisa adiid in la raro ninkaas aniga aqoon kaloo dheeriyo uma lihi bas facebook oo kaliya ayaan isku naqaanay muddo 8 bilood ah ayaan iska seenaanay asaga marka codkiisa siduu u ekaana codkiisa iska caadi ayuu ahaa okay aniga ayaa ku dadaalayo wax walbana waan ku dhammaynayaa waayahay bye waan ku salaamay aniga laakiin maalintaas maalin fiican uma ahayn iyada si kastay ahaataba
akhbaar fiican ayaan ka helnay taaraa ninkii halkan keenay intaysa meeshaan imaanin ka hor ayuu wuxuu iska xiray facebookiisa ninkan sawirkiisa hadda anaga ayaa raadinayno teeda kale taleefonkii naagta kula hadashana waa la raadinayaa xataa wejigeeda way tilmaanta ayada ayna siisay naagtaas wejigeeda ayaa lama sawirayaa eelboorka markay joogtana taleefonka oo ka soo wacay taleefon caadi maahan waa internet call qof walba meeshuu joogo ayuu qofkuu doono ka soo wacan karaa aniga waxay ila tahay ninkaas oo keliya ayaa iyada badbaadin karo qof kale ma badbaadin karo sidaas ayay ila tahay aniga taara ninkan kalena waa bansaali kiisaskooduna waa kiisas darooga ah bansaari waxaa la dilay 18 July waxaana dilay qolo burcada waxayna u dileen arrimo ku saabsan daroogada gabadhanna waxay ku xiran tahay xilligan la joogo Ireland labadaas qofood hadda ka soo hadalnay arrintooda waxaa ka dambeeya nin la yiraahdo adid waa kuma xagee ayuu jooga xagee isku nool yahay waa inaan gacanta ku soo dhignaa arrimihiisa oo dhan aan baarnaa ugu horeyn ninkaas ciidanku ay soo diray aniga isla habeenkaas ayaa meesha ku baabiyey balse meeshaas waxaan ku waayey adid waddada aan ku heli lahaa adid barmis adiga maahan ii sheeg ya aniga magacayga kaas waayay lakfeesta ka buuga weligay ma fulanin aniga maskiigna waa ahay marka sawirkaygana kaas waayay marka waa ku tuuga abawaskari aniga wadiyeyn wadanka ma ka dhoofin ilmeey baa kugu dhaarana feesa ka buug iyo wasaka xaabki iyo makasay dhuuntay baa kugu dhaaranooya qof kale le magacay ku furtay masawirkeeya u malaynaa magacaydana iska gada makasay baa ku leenay waa ku tuuga adeer askari ganfuurkaagan waa ku xubsinaya aniga adid gacantaan ku dhibi waayey balse waxaan ku marugsanaa taaraha maxkamadda waxay ku xukumi doonto taaraa in muddaba wixii kiiskeedii la daba taagnaa haddeer waa ku caddaatay maxkamadda sharafta leh waxay ku xukuntay taaraa 7 sano oo xerig ah
ها هوي ما أنت ترى أيام كل ما أذيك أنا كوع استي سي حتى فا gabadhaydii iiga waran habeenadan riixuna ayaan arkaa waan ku baryaa wiilkaygii ogolow inaa meeshas imaado ما يهوي waan ku baryaa wiilkaygii لون بان أنا قاعد ترى كينا laakiin fiiri hadda ayaa videoga adiga iyo taaraa fiirsanaya wiilkaygii rago taaraa way soo noqonaysaa soo maahan ها هوي أنا قاعد أسلم عنينا وبلا أنك قاضي وحباك بغن أنا قاعد كينا ترى هلو alaabti meeshay ها iga raali noqo aniga taaraa waan badbaadin waaye xataa xarigeeda inaan gato waa liiga diiday aniga dhibka meeshaan ka jiro waxay tahay waddankeenna maahan haddaan waddankeena joogi leen dhib ma lahan adiga laga wada dadasho soo maha hadda maxaa samaynaysaa indian oo laabanaa weliba anigii taaraa taas macquul ma noqonayso waxaan rabaa taaraa xabsiga inaan ku soo daayo aan soo xadminayga meeshaan hindiya maahan waa ireland waan ogahay waxaasna ma kuu suurtagalaya waan ogahay laakiin waxaad ogaata dadka haddii madax adegiin anigaa kasii madax adag mana laga yaabo taaraa inay xabsiga kusii jirto waa inaan ka kaxeeya xabsiga You can't shoot? God damn it, man. Where do you get these guys from? India? A godforsaken place. This is very Ireland, you know? The IRA has real stuff and you go bang, bang, bang. Where did these guys come from? They're a bunch of jokers, you know? That's all they are. I'm telling you. Here's one more Indian coming. Would you like to try shooting? Don't be afraid. They're not real. All are blanks. Just wear glasses and headphones, so the bullet sounds will not disturb you. And then, even if you cannot hit the target, still it's all game. So don't feel scared. It's all game. Indians can't shoot properly. They're the best and easiest target. Ask any of the neighboring countries. Hey, boy. This is a G41. Generation 4. Practical and tactical. .45 caliber automatic pistol. Manufactured by Glock in the US of A. Do you understand? No? Translation denied. بستول ده متقنع بين معها وبستول درون مقعد متقنع وأمان لاي والإحقات أمان ملا أوتوماتيك أمر دعضو بلسي أنا وحنا استعمال متقنع ودن كينا عدو برعدة يتدقعون إنان كاكدعينو بلسي أدينك ميد أدوضتان ميد فالساعة وحبا أن تريني ميلان تلجوكتان وحنا كون مقابتان بلسي أنا بستول دحون قادنا ودن كينا أما ددكينا إنان كدفاعنا ما فهمتي أوكي هدي آدم فاهمي كرين دب ملان قف كترجمه وترسن كرتا أوكي إيه باشر ragu ninkaas waa raaj fiir waa ninkayga hore wuxuu halkan u fadhiyaa safaaradda hindiya raaj fiir ragu waa kana okay waxaa lagaaga baahan yahay garab inaad siisid wax walbana adiga dartaada u sameynaa ogow ragu waxaan doonaya inaan kuu sheego taaraa markano kiiskan daroogadu ay ku caddaatay wax laga qaban karana mana waana la xukumay aniga hadeer wax aan u qaban kara male mana badbaadin karo maxaan kuu samayn karaa marka walaalow arrintan waa la xukumay qoftaas wax ciyaarna ma waddankan sharcigiisu adag yahay
واي محل سمية ما عندي أنت بسجل أبدا ما ترى كم تايكر عنيها وحول بأيو قاصد ترى وأنا متبادية وحول بأيو قاصد نقوله jaceylka intaan oo keliya ayaan ku nacay aniga mar walbo indhahayga waxaa ka muuqatay daara oo keliya إلي قرشة في عن أيان هلي حلي قاس waxa ii muuqdo kaliya sidaan taara xabsiga ugu soo badbaadin lahaa ninkaas adiga aad ka hadlaysid waa nin khatar ah xabsiga sida looga baxsadana agtiisa waxba maba ka ahanba aabiisna wuxuu ka tirsanaa ciidanka garaaji 1954 asagoo rabay hindiya garab inuu siiyo ayaa cadowga dilay asaga saaxiib ninkaas arrintiisa diin kaaga sheekeeyay amba haddaan kaaga faallowdo ninka hooyadiisa gacantiisa ku dili waaya ninkaas nin naxaya miyaa ii sheeg weligaada ma maqashay hooyadiisooba gacantiisa 16 xabsi oo dunida ku kala yaalo ayuu hore uga soo fakaday asaga haddana adduun weynaha dhan ayuu soo nacay kadibna xabsiga iskiisa asaga ayaa isku keenay haddana wuxuu ku xiran yahay xabsiga weyn oo Dublin ku yaalo mudane magacay waa lagu raaj haddii lagu dhahaa xataa wax farqiga uma dhaxeeyo teeda kaleeto afartan derbi oo annaga aan ku dhex jirno magac iyo wax lamida kama shaqaynayaan lambar oo keliya ka shaqeeya halkan magacaagu waa lambar waxaa kaloo ogaataa aniga ma jecli su'aalaha badan iyo hadalka maalayacniga oo lala yimaado marka waxaan kuu sheegayaa xataa saaxiibtinimo kama helo ujeeddadeeduna waxaa waaye lacag oo keliya warkayga ma fahamti waxaan lacag ahayn ma xiiseeyo marka ha ila imaanin su'aalo badan iyo hadal mudane ma laga yaaba arrintan inay macquul noqoto waxay ahaataba aday ku taalaa taas laakiin adiga waxaa lagaaga baahan yahay laba mid inaad ka fikirto laba waxyaalood midda koowaad inaad nolosha ka fikirto tan labaadna inaad ka fikirto xornimada waayo halkan hindiya ma aha annaga waxaan doonaynaa mukulaal shabaq ku jirta inaan shabaqa ka soo saarno albaabada xabsigaanna sidaas uma adka ma jiro albaab furo la'aan la sameeyo albaab walba waxaa loo sameeyaa furo waxaana loo baahan yahay inaad furahaas adiga hesho oo aad gesho falkii aad ku raadin lahayd furahaas aan u dhegeyso furahaas inaad hesho waa muhiim midda koowaad waxaa lagaaga baahan yahay laysin travel inaad hesho waxaa kaloo lagaaga baahan yahay midda labaad inaad hesho maapka Dublin si aad luqluq ugu barato magaaladan inta meel oo aad kala degaysid iyo meelaha aad aadaysid dhammaan inaad kala barato waa muhiim
waxaa kaloo muhiima meeshaas sidaad ku tegi lahayd inaad falkeeda gasho magaaladana wadooyinkeeda tirada badan waxaa lagaaga baahan yahay inaad mid mid u barataa oo aad xifdisaa booliska si fudud ayaa idinkeeda ku qaban karaan laakiin waxaa ku badbaadi kartaa inaad 20 daqiiqo gudahood hawshaada qabato waayo booliska 20 daqiiqo ayay ku howlgeli karaan adigana waxaa lagaaga baahan yahay ka hor inaad hawshaada dhamayso 2 daqiiqo oo keliya ها 20 دقيقة وكلية تدو قلات دعو وحواي جدول با ولا حرايا بوليس كوا حرايا واي 20 دقيقة كوردنا قوانا والدين قارجينا يا هوشينا تشاو واي مدن قبل اسمع عدوى تارا جورنال دا ايا ليدي كسو قوري دونا مركي هوشينا لقل يا waxaan u baahanahay 2 baasaboor 2,000 euro baad dhiibaysaa waa helaysaa baasaboorka rabtid ha ka cabsani okay maalintaas waxay ahayd marka labaad oo aniga laysoo weeraro aniga daabin maxaa u mahday 2 mowqif oo keliya mowqifkayga koowaad waa inaan badbaadiyaa taara mowqifkayga labaad waa inaan helaa qadiid oo taara baxar geliya isbitoori dhegeyso ninkan taaraa diyaaradda ayuu la saarnay waxaana fadhiyay kursigeeda kursiga ku dhegan intuusan gaarin laakiin Ireland magaalo kale ayuu ku degtay tikidkoodana waxaa laga jaray hal agency ayadoo waxay fadhiday kursiga 22B asagana waxay fadhiyay 22D ninkan wuxuu shaqeeyay ciidamada sirdoonka ninkan wuxuu shaqeeyay ciidamada sirdoonka dhegeyso isbitoori ninkan rabal leeyahay waxaan rabaa warbixintiisa kaamil ah okay inta ka horeysana gabadhaas adiga laba kulmi kartid run ahaantii adiga jacaylka si aad ayuu ku indho tiray ilaa heer wuxuu ku gaarsiiyey aniga agteeda uu ku keeno cajaa'ib soo maaha jacaylkayga dartiis ayaan dad badan ku bartay anigu hambalyeena san gurida xiriirkeena weli ma xasuusataane waan xasuustaa isxidhaaf ayaan ku jeclay anigaba waan ku jeclahay aniga haddaadan warkayga yeelin maxaa iga soo doontay soo kuma dhihin aniga gabadhaas ha la kulmin ma xasuusnaatid midaan ku dhahay aniga ma ogtahay haddaa mar walba la kulanto gabadhaas boolisku way ku aqoonsanayaan way kugu baranayaan gabadha hadhowdina fursadaada ma helaysid waxba ma qabsan kartid magaceeda waa taara mudane war adiga sidaan gabadhan kuma badbaadin kartid
ma fahamti gabadha magaceedu waa Taara war taaraha hal dhaho ama manduuri hal dhaho waxaan ku sheegayaa sidaan inayna waxba kugu hagaagaynin gabadhaana ma badbaadi kartid adiga waxba isdaalin saaxiib anagana waalin mudane waan ogahay aniga gabadhan inaad si zaa'id ah aad ugu fikirayso murugtaadii waxqabadkaaga ayaan dareensanahay adigana waxaad iska dhigaysaa qof yacni murug ama waxba aysan ka gudub maalin wanaagsan taliya warbixinta ravan waa hadlay magaciisa runta waa diifdaas telefoonkiisana wuu xiran yahay sheeg warya sheeg hadal yaa kuu dhigo daroogada yaa si ka dambeeyey ii sheeg ila hadal warya ii sheeg waxaas maxaad u samaysay ma tagadashid hadal warya anaa kuu sheega nafisaa ka dambaysay qorshahaas mudane okay nafisa okay anigaa raadinaya نفسها adiga laakiin soo wax soo raac mudan mid ma weydiin i weydii adiga waxa uu tahay qof fiican gaangistar maxaa ka dhigay waxa way aniga sidii lee xiray mar walba sidii lee xiray aan gaangistar iska noqday mar waxa lee xiray 16 sano mar 5 sano lee xiray haddana waa ii jeedaa halkaan aan ku xiranahay hadda ka hor anigoo meel iska jooga ayaa hooyaday qof xun iigu imaatay meesha anigana markaas waan dilay laakiin adiga waxaan ku weydiinayaa qof fiicanaaba tahay maxaa gaangeyster kaa dhigay ifahamsii bal midaas ii sheeg okay qisiyadan ku sheeg lacag ma baahnaan okay dhib ma leh waa kiishiina arrinkaas laakiin ii sheeg sanadku markuu ahaa sagaashameedii hooyaday waxay la shaqayn jirtay qolada filmaanta samaysa anigana aad ayaan u jeclaa filmaanta aniga shaah ayaan gadi jiray xaafaddeena waxaa degnaa nin burcad ah oo booliska raadsanayso anigana shaah ayaan u gey jiray agtiisa aniga makaan tagayna ma lay baari jirin maalin waxaa dhacday hooyo ayaa xanuunsatay anigana waxaan u baahnaa 10,000 oo hooyo aan ku daawaysto waxaa yimid nin la yiraahdo Anthony wuxuu yiri Raven haddii aad disho 10,000 anigaa ku siinayo kadibna Anthony wuxuu i baray habka wax loo shiisho Anthony wuxuu ii sheegay haddii ninkaas aan dilo inaan ahay nin waddankiisa wax badan u qabtay maxaa yeelay ninkaas dad badan ayuu laayay bas aniga qorsheyga waa bedelay hay yiriso waaba imaatay maxay keentay maxay wadaa hooyadeen xanuunsan lacag 10,000 u baahnahay sii waa ku tuugaa dhib ma leh hooyada haddii sida gabdhahan oo kaleeto ay u qurux badan tahay xaggayga u soo dir markuu hooyadii aflagaatay waan xanaaqay kadibna waxaan sameeyey sigaan dilay waryaa maxaa samaynaysaa waryaa ninkaas markaan dilay kadib aniga waa la xiray xilligaasna 9 jir ayaan ahaa balse marka la soo dayay nolosheeda wax badan ayaan ka bedelay Chief, coming. Chief, prisoner 312 is bleeding and unconscious. Get the court orders and get her to the hospital immediately. waxaa la gaaray xilliga oo aan taara xabsiga kasoo badbaadin lahaa ciidanka Dublin haddii gacanta noogu dhiganna way noo dhammaatay balse mar walba nasiibkeena ayaan fiirsanaynaa taasoo ah
jaceylka naga dhexeeyo aniga taara taaraha hal mid ayaad ku badbaadin kartaa marka hore inaad ka soo saarto xabsiga oo aad keento isbitaalka maxaabiista xanuunsan la geeyo taara hadalkiisa fiican dhegeyso waxaan sameey ku dhaho oo keliya waa inaad samaysaa fiir meesha meesha ugu dambaysoo tegaysay waa inaa xasuusnaataa teeda kaleeto qorshahan markaad degaysay meesha aad ku degtay wax caddaynaha uga tegin dhammaan waa inaad gubtaa Security, the phone is not working. Please check it. The wires have been cut. Sir, we cannot get through the city hospital. The lines are dead. Hello. Officer Martin, Chief Joshua here. Is the prisoner there with you? Yes, Chief, we are here. The prisoner is secure. No problem. Just increase the security around her as soon as possible. We'll do it right away, sir. iska jir hadii sadaqaajisan asqaajina daba adin iska jir taara nakeen iska jir asqaajina haye hadda waa ku digay kan telefoonka nakeen taara Oh God, it's a mess there. Quickly send the emergency fleet. Send Walter to Raku's apartment for any clues. Rest head to the hospital immediately. si aan magaaladan ugu baxsano waxaan haysanay 20 daqiiqo oo kaliya 20 daqiiqo hadday dhaaftana askarta Dublin gacanta ayay nagu dhigayaan Hi, my patient, Tara, is admitted here in the hospital. Tara Wadia? Yeah, exactly. in Dublin ugu baxsano 20 daqiiqo aad iyo aad ayay nagu yareed Tara? Security. mar hadday ogaadaan inaad soo baxsateen isgoysyada iyo jidadka magaalada oo dhan kulli way xirayaan marka waa inaad ka taxadirtaan adinka taas ma fahamtay warkayga marka waa inaad ka taxadirtaan adinka taas ma fahamtay warkayga kajir hay soo dhawaanina qalad has ku gelin haddaba isdhiib taara badanka riix inaad qalad gelin ayaa badanka riix taara joog ayaan kula waa idiin sheegay qalad ha gelin iska jir isbitaalka aad gabadha ka soo kaxaysa rabtid maabkiisa iyo akhbaaraadkiisa oo dhan dhammaan waa inaad xifdisanataa ma fahamtay warkayga They're going to the top floor. Come on. Shit. They got away. mar haddaad kala soo baxdo isbitaalka maxaabiista gabadhaas ciidanka ha u malayna inay kaa dabaharayaan way ku raadinayaan ilaa ay kaa helaan marka waa inaad isbasaraysaa adiga isbitaalka ilaa bosteejada tareenka si aan u tagno waqtiga aad ayuu noogu yaraa meesha aan rabay inaan tagno ilaa meeshaas gaari ima diyaarseen tareen iyo soo raacnay tareenkiina
booliska ayaan ugu arkeen Lock stations in either direction. On the main lines. Call the port authority. Tell them I want that train stopped. So, there's something here. jacaylka aniga taara naga dhexeeyo ayaan dhib walba ugu badbaadin saaxiibkayga sheekadu isheegu ku saxsanaa wuxuu yidhi sheekadaada ka hor waa inaad ogaataa dadkaas qorshaha ay leeyihiin anigana waan ogaaday boosteejada tareenka inay ku sugayaan booliska aniga waxay ugu sugayeen boosteejada tareenka balse xilligaas tareenka aniga mar hore ayaanba ka degay fiiri oohin wax ma taraysee fiiri indheed fiiri muluk siyos addiid yaaway ii sheegba inteeska yimid yaa dhali intee isku barateen ii sheegkee dhaqso addiinaan rabaan dhaqso waryaa ma sheegani sheeg waryaa aniga ma aqaani nin addiid la dhahay ayaa teleefon ii soo diray waxay dhahay arrinkaasii qabo waanuu qabtoo keliya aniga ma aqaani raadkiisa iyo meel uu degan yahay yaa Yes, Walter. Sir, they're heading towards the port. Increase all the security checks and block all the entrances in and out of the city. si aan ugu baxno magaalada Dublin waxaanu haysnaa oo kaliya 9 daqiiqo booliskana si xun ayay noo raadinayaan xilligaas wada qaldan ayaad soo gashay taara wadada aan ku socono ma qaldano waa wada saxan maxaa yeelay aniga marka hore waan ogaa guriga markaan kasoo tagno booliska inay guriga ay tagayaan anigana maabka ayaan u bedelay meel kale ayaan u sheegay intay meesha naga raadinayaan annagana meesha aan rabno si raaxa leh ayaan ku tegaynaa aniga intaasoo dhan waxaan sameeyey booliska in aan ku mashquuliyo si aan magaaladan ugu baxsano waxaan harsanay oo kaliya 1 daqiiqo iyo dhowr ilbiriqsi haddii intaas aan ku bixi weynina booliska gacanta ayaan ugu dhigaya Suspect in a black car heading towards the bay. I want them brought in alive. Yes, sir. argo hadda maxaan samaynaynaa okay
They got away. Damn it. Mr. Rajveer, I am the Director of Military Intelligence of Ireland. I am perfectly aware of who you are, sir. I just hope that you are just as aware of who I am. And I hope that there's a really good reason why I'm here on a Sunday morning, unless it's just to exchange a cup of coffee over some pleasantries. How do you know Raghu Vendrasashish? I do not. You really don't know who he is? I just said so, sir. I do not. Do you know Tara Bronson Wadia? She escaped this morning with her boyfriend. I guess that's why they say, do not ever give a bad girl a good boyfriend. anaga magaalada dhinac kale ayaan ugu baxnay balse waxaan ogaa ninka la dhahay adeed oo taara baxarka geediyay in meel kale oo nagaraadinay la wadeena kama dambeys waxaan soo gaarnay meesha anaga aan rabnay weliba anagoo nabad qabna rago waqti xaadirkan adeed wuxuu joogaa She escaped this morning with the help of the bird, Enrique Santino, and some legal support, and the support of the Indian embassy. False allegations and invalid accusations are heavier than abuse, Mr. Truman. Are you trying to tell me my duties? And I suggest that we move on and enjoy the rest of the Sunday, unless you have something more serious to talk to me about. Didn't your wife fight the case of Tara Bronson Wadia? My wife once contemplated representing Osama bin Laden and Saddam Hussein. She's a lawyer. That's what she does. Where is Douglas Broad? Who, sir? Douglas Broad. Am I supposed to keep tabs on almost everybody that I know? tara ninka adeed ahaa waa la soo ogaada wuxuu yahay ee hadalkayga si fiican u dhegayso aniga doobaxa hal sac kadib ayaan meeshan kugu soo laabanaa hal sac haddii aan ku soo laabo waayo waxaad iiga ballan qaadaa inaadan sugin oo aad meeshan ka tegaysid waa ku baryaa waan ku baryaa naifahan isku day ninkaas ma cafin kara aniga marnaba teeda kale taara ani weligay kuma qiyaamin si xadaaf ayaan kuu jeclaa aniga laakiin markaas shaqo ayaan ku jiray shaqo ah haa aniga ciidanka dambaarista ayaan la shaqeeyaa ani nin ciidan ayaan ahay hawsheeda oo keliya ayaan gudanahay maxaad i tiri haba xabsiga aniga markaan ka soo baxay gaashaan asraf qaan ayaa ii yaray kadibna shaqo ayuu i siiyey markaas kadibna asiga ayaan la shaqaynayay raggo maanta runta waxay tahay ayaan doonayaa inaan kuu sheego ugu horrayn howlihii aan horay ugu diri jiray middan way ka sii adag tahay ninkan bansaari la leeyahayna sharciga gacanta ayuu ku soo dhigaa misena wuu ka badbaadaa haddana sharciga mar labaad mar saddexaad mar afaraad gacanta ayuu ku soo dhigayaa misena sharciga wuu ku badbaadayaa markii maxkamadda la hor keeno ninkaas dhibaato fara badan ayuu waddankeena ku hayaa marka waa in laga qabtaa shacabka waa in laga qabtaa musuqmaasuq iyo qaladku ku socdo waa in laga hortagaa cadowtanimada uu magaaladan u qabo waa in laga qabtaa sharciga uu ku cayaarayo waa in laga qabtaa ganacsiga uu hayo amar oo keliya isii taliya
maxaa sameeyaa ii sheeg kolay tirago adiga hawshaada sidaad u qaban lahayd ma aha midaan aniga kuu tilmaamayo mideeda kale waad la socotaa madaxdoo idil ciidankoo idil anaga inay garabkeena yihiin marka hawshaanna waxaan rabaa sida tahay inaad u qabatid mideeda kale 13 July bansaari iyo 4 kaloo burcda waxay ku shirayaan hotel Empire qolku lambarkiisu yahay 13,003 marka hawshaas adiga ayaan ku xisaabay fursad oo kaliya ay taasa fursadaasna waxay tahay hal saac oo kaliya hal saac kama dheerayn kartid haddaba xukuumaddeena mas-uuliyadoo dhan adiga ayay ku saartay ninkaas waddankeena cadowga ku ah waa inaad qabataa waxbaa ka baqin taliya ninkaas iyo 4 burcad la socota anigaa soo gabagabaynaya hal saac gudaheeda weli ma laga yaabo gacanteeda inay ka badbaadaan qirooriya nin burcad inaad tahay waan qiranayaa taas waan qirsanaya laakiin mar dambe dembi ma gelaya iska kii cafi booliska caadiga hawsha aysan qaban karin aniga ayaa qabto hawsheedana waxaa la socdo gaashaanaqaan iyo wasiirka aniga bansaali markaan dilay kadib waxaan rabay walaalkiisa inaan dilo walaalkiisana waxaan ogaaday lagnaa inuu gabar uu kula balansan yahay gabadhaasna magaceeda waxaa la yidhaahdaa leon anigana markaas kadib kalaabkiyaan aaday waxaan arkay qoftaas inay ka ganacsato daraagiska iyo wax la mid ah markaas kadib aniga waxaan iska dhigay nin maalqabeen ah si aan iyada u helo kadibna waan helay oo gacanta ay ii soo gashay markaas kadib aniga waxaan sameeyey telefoonkeeda ayaan qalab ku rakibay markaas kadibna hawsheeda okay qalabkii la tixraacay kadibna labadooda waa loo dhameeyey wax walba aniga waxaan u sameeyey dalkayga iyo dadkayga wax qaldanna ma samaynin balse anigoo howl ku jira ayaan adiga ku qiyaamay aniga hadda ma sheegi karo inaan badbaadayo in kale sidaas xitaa waxaan ku leeyahay waan ku jeclahay weliba sax dhaaf ayaan kuu jeclahay laakiin ninkan adid leeyahay ma laga yaabo inaan cafiyo ama inaan dhaafo maxaa yeele adigoo garaafka u geystay si kasta ay u qaadato ninkaas waa inaan dilaa balse waxaan ka codsanaa saacad ka badan in aadan i sugin saacad waxay ka badan waxaan rabaa indii inaad u laabato waa ku baryaa madaas iga ballanqaad teed haddii waxay ka dhiman tahay taarabaa badan waan ku soo laabanayaa balse waa inaad sugtaa saacad oo keliya saacad ka badan igu sugan ku baryaa meeshaan isaga tag okay markaas kadib waxaan tagay gaashaala meeshuu ii sheegay oo aan ka heli karo adiid maxay tahay cadowtin inaad ii qabto maxaad ii dili rabtay aniga qofkaa raadinoosta ay maleeloosta miya aniga
maxaa xabadii u dhufanaysaa qofka adiga araadinaysid wuxuu joogaa dabaqa qadiimiga ah keligiisa waay waxaana ku ballanay adiga markaan ku dilna kadib asaga inaan u tagna halkaas inaan kula kulano markaa waa ku baryaa aniga iskee dhaaf wararka warbixinooyinka barnaamijyada waxyaabaha ka dhacaya dunida dacaladeeda intaba waxaa diyaar idinla ah oo aad ka heli kartaan bogga internetka ee www.safifilms.com أديت برامين هاتر مكان ما يشكو أركي لا يابي إلى نقطي محيا لي هاتر حوها qof aad u degan maxaad sidaan u samaysay maxaad sidaas u samaysa ragoo midaas ma adiga ayaa weydiinayo adiga soo mogid aabbayga horteeda inaad ku dishay la yaabanahay sababta aad ii weydiinaysa hadda waa kuu sheegayaa si fiican u dhegayso waad ka helaysaa aniga aabbay markaad dishay kadib abtigay ayaa meeshaan i keenay waxaana sugaya maalintii aan adiga kaa cadgowsan lahaa marka ugu horraysa howsheedayaan ka bilaabo mataqaana iyo waxaan sameeyey antoni maxaa yeelay antoni wuxuu ahaa ninka kuu soo diray aabbahay inaad disho aniga ma markaa waa waalanahay mogtahay maxaan kaloo sameeyey mataqaanaa antoni kala socda xataa waa dilay ma dhaafin qorshaygu hore wuxuu ahaa mataqaanaa inaan adigu dilo laakiin dib ayaan u fikiray aniga waa fikiray waa wax iska easy ah haddiiba ay dhacdo inaan ku dilayo waa inaan meel xun kaa dhaawacaa macnahayga qalbiga inaan kaa dilo meesha keliya aad ka jilcantaana waa taaraa kadib waxaan ku biiray mataqaanaa taaraa groupkeeda facebook ayaan friend iskala noqday macnahayga saaxiib ayaan ka wadaa inter saas ay tahay haddana weli waxaan sugaya mataqaanaa maalinta waktiga aan tallaabta qaadi lahaa sida adigoo kale dagaalka adi iyo taaraa idinka dhexeeya ayaan ka faa'iidaystay si fursaddaas aan uga faa'iidaystana xaggeenkeena mataqaanaa ireland macnaha deegaankayga kadib ayaan asxaabteeda waxaan ku amray in ay aniga i matalaan oo internet kolka ay kula xiriiraan diyaaradda markay soo kacdana ayada meeshaan ogeyn ninka tikid ku soo jaray inuu dhinaceeda fadhiyey saaxiibkeena wuxuu ahaa ninka keliya ee daraagiska soo gudbiyo waayo riboorka hindiya lagama shakiya asiga sharci ayuu haystaa kadibna wuxuu sameeyey bugaagtii ayuu u kala beddelay kii daroogada ayuu keeda geliyey kan kalena meeshiisa ayuu ku celiyey intaas oo dhanna waxaan u sameeyey mataqaanaa si aadan labadiina isku helin marnaba aadan is helin sida aaraba ma dhicin way baxsatay kadib maxaan sameeyey mataqaanaa booliska ireland ayaa wacay si ay gacanta idinkugu dhigaan laakiin waad ka baxsateen raggu waxaan raba inaan ku dareensiiyo qofka aad jeceshahay marka uu kaa fogaado
xanuunka iyo dhibaatada uu leeyahay maxaa yeelay anigu waa ogaa inaad meeshaan imaanayso si aad u badbaadiso qofta aad jeceshahay laakiin aniga waxaan sameeyey mataqaanaa burcadda dublin ugu waaweyn ayaan ku soo adeegsaday si aad u dareento weliba adiga oo tagan qofta aad jeceshahay oo dhibaataysan adigana aadan waxba u qaban karin hagaag qoftaas hadda adiga ma badbaadin kartid qofka kaliya u badbaadin kara yaa waa mataqaanaa waa aniga intaan soo dhawaysto laabta geliyo aan weliba waxaan matalaynaa jacaylka adduunka adiga waxba uma qaban kartid kadib waxaan dhahaa mataqaanaa qaali qalbi qurxey aniga adiga la'aanta ma noolaan karo dunida adiga ayaan kugu jeclahay adiga laakiin maxaad u qaban kartaa ii sheeg maxaad samaynaa haydar igu dhifo idil igu dhifo maya ima dili kartid haddii aad dishana adiga ma helaysid caddayntii aad ku badbaadin lahayd taaraa sidaasna waxaad ku weynaysaa jacaylkaagii ha jacaylkaaga ayaad weynaysaa raggu ma la socota adiga hooyaday marmarka qaar waxay dhihi jirtay adiga waad waalan tahay laakiin aniga si zaa'id uma waalni waayo maanta heer waxaan ku gaarsiiyey anigoo ku hortaagan inaadan idili karin aniga waxba igama qaadi kartid aniga haddii sidaas ay tahay waxaan ciyaarinaa ciyaarta waalida okay diyaar ma tahay bistooladan aad u jeedo waa liiqaad 5 god way bannaan yihiin hal xabad oo keliya ku jirto cidda ku dhacdana oo ku geeriyooto way guuldareysatay ma fahantay sheekadan waxaan ka bartay filim uu waday anil kaboor waan xiiseenahay hadda sidaan filayo diyaar waad tahay sooma waad waalantahay soo maa balse waxaad ogaataa aniga inaan kaa sii waalannahay qosolna qosole ma qosol baa kaa dhammaaday aabbaaga markiis hore wuxuu ahaa qof xun oo ciyaar suuq ah anigana sideen u dila mataqaanaa sida eeyoo kale balse adiga sideen ku dila mataqaanaa sidaasi si ka daran maxaa yeele qalad weyn aad gashay sugbal looma baahnin arrimaha taara inaad soo faragashato waad ku qaldaneed sugbal teeda kale makaaga baahnay caddeemo taara aan ku badbaadiyo maxaa yeele ciyaarta waa dhammaad raggu maadaama aad garab siisay waad ku mahadsan tahay adiga sheekadan waa sheeko aad u dheer ha iloowan wiilka inuu anaga naga mid yahay hadalkaada yaa diidi kara mudan adi waa in wax loo qabtaa okay akacabsan teeda kale eli muu sheegtay arrintan inay garab nagu siiso garab bay ku siinaysaa adiga taas ka jiif hawshaa ninkii garab ku siiyey rubii saaxiibkiis miyaana aniga waxaan u sheegay wuxuusa hadalkayga asaga uusan ku diidi karin waan ku faraxsanay aniga maadaama xorriyaddooda ay dib ugu soo noqotay
laakiin hindii sidii ku aadi karaan ayaga marka hore hawshaas aniga garab ku sii marka labaadna adiga ayaa ku sii inta kaloo dhimanna isagaa dhammaysanaya qadada intaan la gaarin ka hor mar labaad inaad guursatid ma laga yaaba adiga ani maa kaa diidi kara macanta